wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadan ay kugu talagalnay maanta waa axad taariikhduna waa 22 bisha Juun sanadka 2025 waa barnaamijkeennii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbinayno waa barnaamijkeennii subaxnimo haddaba waxaynu ku soo gudbinaynaa wararkii ugu waaweynaa ee kasoo kordhay xaaladda ku saabsan weerarkii lagu qaaday goobaha nuclearka Iran maxaa laga qoray maxaa laga yiri Iran inay kala baxday uraniumkeedii halka masaxba in gabi ahaantii la burburiyay masaxba wixii laga qoray oo dhan oo tafaasiila oo ilaa hadda laga yiri ayaan barnaamijka inta ugu muhiimsan idin kula wadaagi doonaa dhanka kale barnaamijka waxaynu ku faahfaahin doonaa Iran oo markii ugu horeysay sheegtay inay isticmaashay gantaalka la yiraahdo Khaybar kaasoo dhowr madax leh waxaana la sheegay inay daakum kaga dhigtay saaka Israa'iil meelo kala duwan magaalada Tel Aviv ayaa guryo badan ay burbureen haddaba maxaa laga qoray sheekooyinkaas barnaamijka idin kula waraagi doonaa waxaa kale barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonaa warbixino ku saabsan xaaladda guud sida ay tahay goobtii ay ku sugnaayeen 600 ee ruushka ah ee khubarada dhinaca sayniska ee nuclearka ka shaqeynayay oo Iran ku sugnaa maxaa soo gaaray mise dhankooda lama duqayn haddaba xaalku siduu yahay haddaba tafaasiil ku saabsan sheekooyinkaas oo dhan ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idinla socodsiinaynaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada maanta oo axada aan idiin soo gudbinayno haddaba barnaamijkeena waxaynu u kala qaadi doonaa dhowr qaybood qaybta ugu horeysa waxaynu kaga hadli doonaa weerarka Mareykanka uu ku qaaday goobaha nuclearka Iran iyo saameynta uu weerarka yeeshay haddaba marka ugu horeysa waxaynu kaga hadlaynaa meelaha la weeraray ee saddexda ay nuclearka ah xagee ku yaalaan marka la eego khariidada Iran meesha kale ee Ruushka iyo Iran ay shirkada ku yihiin ma meelaha la duqeeyo ku jira mise wuu ka fog yahay meelaha ay ka baqayeen khaliijka in dhibaato ay ka timaado ma meelaha la duqeeyaa mise waa meelo kale haddaba marka dhammaan su'aalahaas oo dhan waxaan u maleynayaa qof walba inuu isweydiinayo haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa calaamadeeyay meelaha la duqeeyay waa meesha goobaabinta guud la geliyay saddexdan gobol ayaa la duqeeyay Asafaan iyo Kaashaan iyo Qum saddexdooda marka waxaa ku yaala saddexda meel ee la duqeeyay nuclearka ah saddexda gobol ee horta ku yaalaan meesha goobaabinta la geliyay sida arkaysaana waa wadanka bartamihiisa waaye meel xeebana uma dhawa meel kalena uma dhawa wadanka gudihiisa ayay ku yaalaan haddaba marka warbixinta way sii kala qaadaysaa waxay leedahay saddexda meel ee nuclearka ee la duqeeyay waxaa leedahay Asafaan iyo Natanz iyo Fordo marka waxaa laga xukumaa gobolka la yiraahdo Qum Natanz meesha la leeyahayna waxaa laga xukumaa gobolka la yiraahdo Kaashaan Asafaanna iyada ayaa gobola marka meeshaas saddexdaas meel ayaa la duqeeyay ayaa la leeyahay oo duqeyntu ay ku dhacday waayahay marka meelaha marka oo Ruushka uu joogay ma meelahan la duqeeyaa maya haddaba marka aan idin tuso goobaabintan meesha la geliyay saddexda meel oo la duqeeyay waxaa ka soo sokaysa meel badda saaran oo calaamada guduudka leh oo la yiraahdo Boshar la yiraahdo Boshar waa meel kale oo nuclear ah oo saaran badda saaran tahay baddaas marka waxay u dhaxaysaa Iran iyo khaliijka u dhaxaysaa khaliijka marka meesha ay ka baqayeen waa meesha la yiraahdo Boshar oo aan saddexda goobaabinta ku jirta ku jirin oo badda saaran Boshar marka waa meesha Ruushka iyo Iraaniyiintu ay sheerka ku yihiin oo 600 oo shaqaalaha Ruushka ay joogaan waa fahamnaa malena marka Bosharka dhanka xeebta taarata khaliijka xeebtaas saarata marka waxaa la yiri Bosharka waxba dhibaato looma geysan carabtina waatay ka cabaadayso qaylinisay oo yana ku taabanin lahayd Ruushkuna waa tuulaha meesha yaa la isku iimaanay 600 shaqaalaha ay joogto mana ka qaadayo marka Bosharkaas
sidiisaba isagu waa nabad qabaa sababtoo waxaa leeyahay isagu problem weyn ma qabo booshaarku cabsi lagama qabo meesha ugu weyn oo laga baqayay waxay ahayd meesha la yiraahdo Fordo meesha la leeyahay Fordo meesha la leeyahay meeshaasaa marka ah meesha ugu badan ee laga baqayay oo dhibaatadu ay ka jirtay Fordoodu marka waxay ka baxsan tahay waxay ka tirsan tahay gobolka la yiraahdo Qum oo gobol diimeed ah halkaas marka meesha loo dhaarsanaa waa meeshaas nadnaska iyo asafhaankuna iyaguna waa meelo dhulka hoostiisa qodnaa laakiin wax la mid ah ma jirin waayay marka waa usoo noqon doonaa wixii marka hore waa inaan fahamnaa Mareykanku halka marka maxay ku dhufteen 6 bam oo midkiiba yahay 14,000 oo kilogram macnaha waa 14 tan 14,000 oo kilogram 14 tan waa midkiiba ayaa lagu weeraray dhowr diyaaradood ayaa weeraray marka meesha wararka qaar waxay leeyihiin Fordooga kaligiisa laba ku dhacday gantaalo leeyahay Tomahawk oo ilaa 30 ahna waa lagu duqeeyay waxaasa ku dhacay meesha leeyahay marka uu leeyahay marka waxaasa ku dhacay Mareykanku leeyahay waa ka takhalusnay waa intaas haddaba marka aanadito soo warbixin laga qoray waxa leeyahay markii ugu horeysay taariikhda ayaa bam culays kaas leh oo aan nuclear ahayn caalamka la isticmaalay waxaana ay noqotay meesha la yiraahdo Fordo meesha lagu garaacay bamkaas aqwa qumbula fil caalam marka laga soo tago nuclear macnaha bam nuclear marka laga yimaado bamka kale ee ugu weyn ee meel lagu weeraray adduunka waa bamkan 14,000 oo kilogram ciyaarmiya waa 14 tan midkiiba diyaaradda kaligeeda waa diyaaradda kaliya ee caalamka ee qaadi karta bambooyinkaas waxaa la yiraahdaa B2 aliyada marka diyaaraddaas marka waxa leeyahay duqeysal ayada dhanba laba xabay qaadaa marka waxa leeyahay diyaaradda marka intaysan duqayn meesha ka hor ayaa waxa weerar ku qaaday oo gantaalaha difaaca Iiraan mashquuliyay diyaaradaha Israa'iil kadibna waxa yimid diyaaradahan waaweyn gantaalaha ay ku dhufteen wararka qaarna waxay leeyihiin intaysan diyaaradaha kanu imanin ayaa waxa ku sii dhacay meesha gantaalaha Mareykanka ee la yiraahdo Tomahawk ayaa meesha ku dhacay ayaa wararka qaar leeyihiin marka waxay leeyihiin gantaalaha marka hore horeeyay kadibna marka hawsha saasi ah waayay marka maxaa dhacay marka intaas ay dhaceen markiiba Netanyahu ayaa soo hadlay qofkii ugu horeeyay oo ka hadlay isagoo ahaa wuxuu u mahadceliyay Mareykanka wuxuu u mahadceliyay Trump wuxuu sidoo kale sheegay nabadda mararka qaar tahay awood in lagu keeno qasab in lagu keeno kan inay tahay wixiisa watoort hadda kadib waxa walwala ma qabno waa kaasoo wuxuu maanta dhan u mahadcelinayaa Mareykanka Trump saaxiib fiican waaye dagaalku nala galay waxa yar kadib waxa isaguna soo baxay oo banaanka iskeenay ninka la yiraahdo Trump dhinaciisa midigta waxa taagan madaxweyne ku-xigeenkiisa dhankana wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ayaa taagnaa ninka marka si jees oo kibir ka muuqdo oo maartay ayuu meesha uga hadlay baadqeenu dhahay hadda kadib wax dhibaato iyo walwala oo Israa'iil ay qabto nuclear in maartay ay meeshaas way ku yimaadeen ma jiraan ammaan waaye nimanka kanuna waa niman weligood dhibaato badna argagixisa taageera argagixisada weligood waxay ku hadaaqi jireen الموت لأمريكا والموت لإسرائيل هدمتو مريكا إسرائيل هدمتو لوكي ديه جرواي وحكا لما يدين لهاي ولا هذا الكيمال هدا دورتان إنا دقال آدان وإذين علين دورنا ومعناه ميلك لي هدفيك لي يقوبك لي وأن ويررنو أيان هيسنا marka hadalkiisa dadka wax falanqeynaya waxa ku tilmaameen hadal
isla weynin badan oo ku jiro waa idin garaacnay maxaa samayn kartaan haddaad dhaqaaqdaan oo aad meel Maraykanka ama meel kale dhibaato ka geysataan bambooyinka idinku garaacnay weli waa haysanaa meelo kale ayaan haddana idinka baabi'inayn marka hadda inaad kala doorataan inaad sii jirtaan oo dowlad sii ahaataan oo nuclear la'aan shaqaysataan iyo inaan dhulka idinla simo oon idin baabi'iyo waay intaasaa marka israacday markay warku halkaa maraayo marka oo sheekadu xalay halkaa maraysa warbaahinta dhan marka waxay sugayeen dhanka Iiraan Netanyahu waa hadlay Trumpna waa hadlay bareerahooda waa cadaysteen sheekada way naga dhamaateen markii yaa la sugayay inuu hadlo Ayatullahiga iyo raggiisii maalmaha dhan ugu waalay midaan dhigno saan yeelno saldhigyada Maraykanka gobolka way holcayaan Al-Jazeera marka waxay leedahay waa sugaynaa weli dhanka iyo maaratay Iiraan weli wax war kama hayno waxaa noogu horeysay niman madax aan waaweyn ahayn mid Mahdi hebelka la yiraahdo oo la taliyo ah gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan iyo rag kale oo la soo xiganay waxay leeyihiin meesha waaba ka qaadanay uraniumkeena wixii noo noqon lahaa hub nuclear ah waa kala baxnay waxaanana waa sii wadanaynaa meel aamin aan geysanay warkaas marka warka Iiraan ugu horeeyay ka soo baxa ayuu ahaa waxa soo kale haddana soo baxay war la leeyahay meesha wax ku dhaceen khasaaruhu inta aan la ogyahay waa ka yaryahay inta la sheegayo waa ka yaryahay Maraykan intaas ku dhufan intaas oo meeshii wali way shaqaynaysaa la qaybta hoos oo dhan wali waa shaqaynaysaa bamkii iyo gantaalihii wixii way gaari lahayn xataa Israa'iil ayaa waxay leedahay wararka aan helayno in sidii la rabay aan loo garaacin warar Israa'iil ka imaanaya leh iyadoo markii hore laakiin Netanyahu uu dhahay meesha waa la dhameeyay ninkii Trump aana uu yiri meesha mar dambe nuclear ma jirto waa la soo afjaray waxaasa marka Iiraan xageeda meelahaas wararkaas marka ka yimid weli marka war u qalma oo magaca Iiraan ku hadlaya ma jiro oo maaratay Ayatullahiga iyo ragga waaweyn ka soo baxay iyadoo meesha hawshu joogto ayaa waxa soo baxay marka warar kala duwan qaar waxay lahaayeen Maraykanka wuxuu ku yiri Iiraan kala baxa uraniumkiina kadibna meesha waan duqeynayaa Israa'iilna si loo qanciyo adikuna maaratay aad u badbaadaan warara qoraya iyagana wararku waa isku dhaxyaaceen waa isku dhaxmal xataa wakaaladii wararka ayaa wararkii midka saxda ah iyo midka qaldan waa la kala garanaya warka mid walba wuxuu rabo iska soo qoray hawshu marka halka markay marayso marka oo xaaladdu ay halka joogto ayaa marka waxa dhacay in ay bilowday Iiraan inay gantaal rido ku dhawaad 40 gantaal ayaa la riday intaan gantaalka la ridin heegankii ugu sareeyay darajada 4 ayaa la geeyay yiri cabsida Israa'iil shaqo lama aadi karo isu soo bax lama aadi karo iskuul lama aadi karo wax la aadi karo male wasiirku gaashaandhigga sheegay nimankii marka caraysnaa ee meelaha laga burburiyay ayaa waxay soo rideen gantaalka marka khatarta ah ee weyn waxa la yiraahdaa Khaybarku dhowr madax ayuu leeyahay sida Al-Jazeera ay sheegayso Khaybar wuxuu wataa dhowr madax oo halkii marku qarax markaas waxay burburiyeen Talaabiib iyo Haifa iyo sida ay u galeen dabka ka kacay guryaha gubtay dadka baabay ilaa hadda marka waxa leeyahay caaliqiin ayaa waxay ku hoos jiraan burburka hoostiis marka tafaasiil rasmiya khasaaraha ay geysteen lama sheegin laakiin goordhow waxa isaguna hadlay afayeenka ciidamada Iiraan wuxuu ka warbixiyay weerarkii wuxuu sheegay inay duqeeyeen dhowr goobood oo ugu horeeyo airportka Ben Gurion
waxay soo kala duqeeyeen goobo oo maaragtay abxaadta technology-ga iyo waxaas iyo chemicalska iyo meelo ay yaaleen saldhigyo military waxaasaan dukum daakum ka dhignay ayuu yidhi marka weerarkaasu marka waxaa leeyahay dhaawac culus ayuu Israa'iil u geystay Israa'iil iyaduna way ka jawaabtay weerar kale ayay qaaday waxyaabaha la yaab kale marka waxaa ka mid ah Israa'iil waxay leedahay gantaalahan nalagu baabi'iyay saak waxay ka soo dhaceen bariga Iiraan meeshii markii hore ay ka soo dhici jireen galbeedkii meelahan iyo oo diyaaradaheenu ay tagi jireen duqeyn jireen meel ka baxsan ayay ka yimaadeen oo diyaaradahoodu aysan markaa tagi karin oo aysan duqeyn karin oo Iiraanta iyada iska weyn xuduud fara badan iska leh marka bariga laga soo riday 2,000 iyo wax ka badan kilomitir ayuu 5 daqiiqo gantaalku ku soo jaraya iyo 7 daqiiqo waa ku dul taagay 5 daqiiqo iyo 7 daqiiqo gantaalka wuu kula joogaa marka waxay yiraahdeen dhanka bariga ayaa gantaalahan culus ka soo dhaceen ninkii afyeenkan wuxuu leeyahay weli maynaan bilaabin awoodaheena rasmiga ee gantaalaha way hawshu marka halkaas ay marayso ayaa haddana waxaa la helay warar dhanka Iiraan ka yimid waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi oo jooga Istanbul wuxuu sheegay in Mareykanka uu doortay dagaal oo maaragtay inuu la galo Iiraan in maaragtay xadgudub lagu sameeyay Iiraan mar kale la soo weeraray waa kaas arrimahaas ka hadlay marka maxay leeyihiin Mareykanka wixii uu ka helo ayuu helayaa marka horta xaaladda guud waa saas ayatullaahina hadda aan idin la hadlayo weli ma hadlin xataa waxba ma soo qorin laakiin waxaa loo badinayaa oo la leeyahay inay nimankan Iiraaniyiinta ah shirayaan wixii markaa la gudboon iyo jawaabta ay bixin lahaayeen haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa khubaradu maxay ka yiraahdeen maxaa dhici karaa maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda maxay ku saadaaliyeen inta aan soo dhageystay warkoodaan idiin soo koobay waqti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo axada haddaba barnaamijka waxaynu maraynaa qaybihiisa ugu dambeeyay haddaba marka maxaa la leeyahay Generaal Xaatim Al-Falaaxi ayaan ku bilaabaynaa Xaatim Al-Falaaxi waxaa la weydiiyey arrinkanu muxuu noqon karaa Iiraan maxay samayn kartaa horta isagu wuxuu qabaa oo doodiisu ay tahay Falaaxi waa khabiir military oo generaala oo martay Al-Jazeera ka hadlay wuxuu qabaa wuxuu leeyahay anigu maba aaminsani uu leeyahay Amerikaan hadda inuu bilaabo dagaalkan Israa'iil awood ay Iiraan ku weerarto 2,000 oo diyaaradood hawada wax ku siiso kan ku sameeyso ku ilaaliso ma haysataba laakiin waxaan la dhahaa Israa'iil sameynaysa laakiin anigu wuxuu yiri Amerikaan inuu dagaal ku jiro aaminsan mid kale wuxuu yiri Iiraan waa inay ka fakartaa waxa ay hadda ayatullaahiga u hadlaayay u maqayaan waxay tahay Iiraan horta waxay raadinaysaa saaxiib hadday leedahay caawinaya dadka lala dirirayo waa 2 dawladood Israa'iil iyo Mareykanna hubka adduunka ugu waaweyn oo haysta iyo diyaaradaha ugu khatarsan marka Iiraan kaligeed ma ka hortagi kartaa Mareykan iyo Israa'iil waxa kaliya ay haysato Iiraan waa awlaadeedii oo qaar naafay yihiin xisbullah amal waa la naafay madaxdii laga dilay waa la baabi'iyay tabar badan ma jirto xootiguna niman iska jabhada awalba sawaariiqda iyo gantaalaha Iiraan ay ka keensadaan ay ku xariiftamayeen yaa kaloo ay heli kartaa Iiraan oo dagaalkan la geli karaa war waa soo dhamaaday hadda ruush wuxuu dhahaba haddii aniga maaragtay meeshiida la taabto meeshiisa lama taaban Iiraan markii la weeraro oo Mareykan dagaalka soo galo dagaal saddexaad ay noqonaysaa wax ilaa hadda ruush war laga hayo ma jiraan afkii baa juqda gabay shiinihii war lagama hayo cid war lagama hayo ma naqaan uu leeyahay qanawaad itisaal oo hoose inuu jiro xiriiro hoose inay dawladuhu yeelanayaan taas marka wuxuu leeyahay waxay keenaysaa inay si dhab ah uga fakarto Iiraan inay 2 kala doorato muqaamara inay samayso oo ay kaligeed la dagaasho
iyada iyo awlaadeeda Maraykan iyo Israa'iil taas marka maxaa ka dhalan karule taas waxaa ka dhalan kara Iiraan in la burburiyo oo dhulka la simo dawladnimadeedii baaba'do madaxdeedii laga dilo wadanka uu ka baaba'o ilaha dhaqaalaha dhan ay baaba'aan wadan eber ah uu noqdo banaanka ku soo dhaco iyaduna wixii gobolka Maraykan joogay iyo Israa'iil iyo waxa haysato ku rigto oo la isku baaba'o inay marka wadadaas doorato waa mid ama wadada kale ee u furan waxay tahay meesha aan ku kala joogno yiri Trump nabadda qaata hana meel Maraykan joogo iyo waxaas ku weerarin inay intaas ka dul qaadato waxeeda tirtirato ay aamusto dawladnimadeeda u sii jirto waxeedaas tartiib u wadato oo nidaamkeedii iyo dawladnimadeedii iyo systemkeedii uusan ka burburin hawsha inay samaysato maadaama saaxiib aanu jirin taas marka isaga marka doodaas uu qabaa ninka la yiraahdo General Hatim al-Falah waxa isaguna jira nin aqoonyahana oo la yiraahdo Muhammad Mustafa oo isaguna ragga wax falanqeeya kamida Dr. Muhammad Mustafa isagu wuxuu qabaa aragti ah ama fakar ah sheekadan inay maartay sidan ku dhamaaneen nimanka Iiraaniyiintuna aysan haraynin laakiin argoosigoodu uu maalma qaadan karo waxaana ay isku dubaridayaan inay weerar mar kaliya ay wada qaadaan Hezbollah iyaga iyo Xuutiga iyo wixii hore inay wada qaadaan oo saldhigyada Maraykanka iyo maartay danaha Maraykanka iyo Israa'iil intaba la gubo oo marka Iiraan ay riskiga weyn qaadan karto aan isku baaba'no annaga iyo Israa'iil wax ah ayaa marka arrinkaas suuragal u leh fakarkaana waxa qabi karo le ayatullaahigo nin macangaga oo aan marnaba isdhiibayn oo marnaba aan maartay fursad haduu helo aan dayacay marka isagu fakarkaas u qabaale marka waxay sidoo kale aqoonyahanada qaar ku doodayaan waxay leeyihiin Iiraan haday sida meesha uga baxdo yaa ku xigi kara Pakistan iyo Turki iyo Pakistan ayaa ku xigi kara dada marka waxay qabaan Turki sidoo ugu xigi kara Turki soo ku jira gaashaanbuurta net waa laga soo ceyrin karaa oda inta la qaado banaanka lagu soo dhigi karaa kadibna markaas lagu ugaarsan karaa wax weyn ma ahan leeyahay Maraykanka macalinka weyn iyo xirtaba haday ku tashadaan banaankaas ku dhacaysa waaye maxaa kale marka dhici kara Ruushka iyo Shiinaha maxay ayaguna arkayaan waxay arkayaan in Iiraan la qararamsaday awoodda iyo cagajugleynta iyo waxa meesha ka socda Iiraan kaliya ma Shiinaha Kuuriyada Waqooyi iyo waxa fariin loo dirayaa in ninka la yiraahdo Putin loo diray ana diyaaradaas haysana wax kasta sameyn karnaa waxna la hadli kara male marka uu fiirsanayo duqeynta markay socoto iyo kibirka ka muuqda waayabasa marka hawshu marka halkaas maraysa hadda kubaddu marka waxay jirtaa dhanka Iiraan inay doorato kaliyeed iyo awlaadeeda inay Maraykan la diraan iyo ama inay meesha ku joojiso oo nabad iska qaadato labadaas hadda la kala dooransiinaa baashu isu hanjabid iyo qawrac way soo dhamaatay Maraykan waa yimid wax waa duqeeyay yaa wax iga qaadi karo jooga marka Iiraan marka ayada u taala adigu maxay la tahay soo qor fakarkeena aragtideena barnaamijkeena ugu horeeyay maanta waxa waanaynta barnaamijka falanqayntiisa ku soo qora iyo fakarkeena qaybta fariimaha bloggereyo shargareeda cusubta subscribe-ka YouTube-ka iyo Facebook-na follow gareynta aan markale kulmayno nabadgelyo